kulankan oo ka qabsoomay Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa oo ay soo qaban qaabisay hay'adda IOM isla markaasina ay ka qayb galeen howlwadano ka kala socday laamaha dawladda ayaa hay'adda IOM ay ku soo bandhigtay buugga habraaca dadka dib ugu soo noqonaya dalka iyo kuwa iyagu doonaya in ay dib ugu noqdaan dalalkooda waxaana kulankaasi furtay gudoomiye ku-xigeenka hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Somaliland Marwo Faadimo Cabdilaahi Cumar ujeedada kulankan ayaa waxa ka warbixiyay Dayib Askar oo kamid ah howlwadeennada hay'adda IOM iyo hay'adda NDRA ama hay'adda NDRA Somaliland halkan waxay ku daahfurayaan buugaag loogu talagalay habraaca soo noqoshada dadka ka soo noqonaya dibadda iyo dadka wadanka Soomaaliland ka tagaya ee wadamadoodii ku noqonaya laba buug weeye labada buug oo SOPs ama habraaci la raaci lahaa loogu talagalay oo ay ka wada shaqeeyeen hay'adda IOM ayaa maanta la furi doona waxaanu halkan ku soo dhigi doona labadii buug waxa markaa inoo furi doona oo si official ah inoogu furi doona gudoomiye ku-xigeenka hay'adda barakacayaasha ee Somaliland ayaa official inoogu furi doona oo ku soo Wariyaha Rashid oo ah madaxa hay'adda IOM Somaliland ayaa ka hadlay furitaankii kulankaasi waxaana uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in ay ka soo qayb galaan saraakiil kala duwan oo ka kala socota laamaha dawladda oo ay khusayso dadka soo galootiga ah iyo kuwa doonaya inay dalkooda ku noqdaan waxaana uga mahadceliyay dhamaanba dadkii ka soo qayb galay kulankaasi in developing this very nice tool because we all know Somaliland has been the focus for migrants, for migrant returnees for the past decades, if no more, and developing such SOPs has proven to be vital in streamlining the process and avoiding misunderstanding for the future. gabagabadii kulankaasi waxaa furtay Faadimo Cabdilaahi Cumar oo ah gudoomiye ku-xigeenka hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Somaliland waxaana ay sheegtay in buuggan ay ka wada shaqeeyeen hay'adda IOM iyadoo ka warbixisay maraaxilka uu soo maray xafladan daahfurka ka kala socda line ministerska iyo hay'adda IOM dhamaantii waxaan ku salaamay saxaafadda waxaan ku salaamay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat maanta waxaan halkan iskugu dhimidnay daahfurka hawl soo socotay oo in badan laga shaqeynayo NDRA iyo IOM ka shaqeynayeen taasoo ah in loo helo balxal iyo guideline ay raacaan dadka soo noqonaya kuwa iyagu raba inay iskood u tagaan wadanadoodii ku noqdaan kuwa kale dibadaha laga soo celinayo bal hab raac ama procedure loo maro in maxaan ku dhahaa la isla meel dhigo insha Allah waa gabagabadii waa maxaan ku dhahaa daahfurkeedii waxaan u mahadnaqayaa hay'adda IOM oon wada shaqeyn dhow leenahay wax badan aan ka wada shaqeyno